gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa isagoo guulo ka sheegtay dagaalka ciidamada dawladda ku meel gaarka ay kula galeen degmada Xudur kuwa xarakada Al-Shabaab. Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen in ka badan 50 ruux oo ka tirsan askarta xarakada Al-Shabaab weerar kula soo jirmaaday ciidamada dawladda ku meel gaarka oo fariisinkoodu yahay degmada Xudur ee gobolka واسيد وورك ودقي شباب القاعدة وحيسوا ويرين مقالة حضور حرب قبل كبقول أيها أو كسوا ويرين سدحة دنع بس سدح في العلود كسوا دقي إذا ماذا الجيسياش حق تلك الصوماليات مثلا أمان إذا ماذا قلب الصوماليات أو كاشنايا إذا كدرس كينا أو عن سكو كاشنا إنه سدي الجيش الولد الغالي من لها إثيوبيا أي غرب سينايان ياسيجي سينماله هو هرجمت علي إلياس عبد الله هون كبر تي في مقالة مقدشو.